هذا مكا نينك حد قذب يدلمي يدباتو كجيستا ربي سبحانه وتعالى حويان حديث ويا ضغطه ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية نين أسوأ مسلم نقضي هذا لو واحد جاهليها مسلمين تدحي يضرب إنه كراديو وبقول صار كهر بحر كان هيك الدين الزو إسلام شغال يبوا لي محل الله وحباس ذا يليا محل الشاهد هو حويان ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه إنه قف مؤمنا ديجي سؤداديو أو راديو السقو أسق واحد دنك لكلين يريني كان بحر وقفها مهرين الدلو كليا حديث أهل العلم صحيح يالين أبي سعيد الخدري وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام وحولي لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار أهل السماوات لقما يابين دول من لي ماذا سببتوا ملائكة الكرام باجوكتا وإلهي بيعابديان وعاسين مايان وحي إلهي أمرنا ويسمينيان وحالله أبو ريو كليا إن إلهي الركوعان ويسجودان ويمحل وتسبيح سدان النبي عليه السلام أطلت السماء ولا سمدي بعبادي وحق لها أن تعض إن عبادنا حق بيؤيالتي وحوليهم موضع وطاكا مجرته إلا ملك باتاغان إما قائم ينتاغيه أما ساجد ينسيه أما الراكع ينركوع سيه قول دول كاسي دول عباد الله لو أبو ريوي ومع ذلك يقول صداع وندنوب كدعين با إلهي وحوليه حدي كقيب قاتان قف مؤمنة دل كيسا يكون دول كجوغا لما أنتو إلهي جهنم وقرينيا يا الله عبد الله بن عمر وحوليه إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله بخار باورينيا وحوري وحيالها مصائبتها اللقوية قف الباب وكغبح وسن هلين وحكمدا نينكي نفتي سدح قليا إنو ضاذيو دي قف بغير حق أنا قالوا أنه سهل أنت بار توقع أمر كسينة يمركم حد أنتهى فلو نيسا بغير حق بالغيها وإنه دريشدو يهاني كان وحن دلي حق بان كدلي يقفكو إنه كيرا هذا إسلامكو نظام بوليه سيستم بوليه وحبو قطع لقالي قف وحو دونا سمين كريم مايو waxaad sheegayso waa inaad bayina cadeynadu keenta hadaad keen weyso tashakada ay kugu soo noqonaysa laakiin wax go'aan inta aanu qofku isoo go'aan u qaato oo qofku intuu xugmiyo hadana asaga uu fuliyo islaamna ma ogola kan gaalna ma ogola adduunku meel laga ogol yahay maaha la min as-samaa'i wala min al-ard wax adduunku ogolaaday ma jiraan qof hadii xataa aad xaq baan ku dilayaa xuquuq buu leeyahay inuu isdifaaco hadduu isdifaaci karin abuukaati lawyer yeesho hadduu san yeeli karin wax cadaysto wax lagu cadayo silsila ay marto marxalad ay marto waqti ay qaadato laakiin saaka 2 saac waan ku xukumay 6 saac waan ku bareeyay ay doonaa meel ay ka timid hatta qaadiyaasha dadka xukumaya dhiiga xukumaya waxay adduunku waxa weeyaan wuxuu mara marxalad aad u dheer waxa laga yaabaa markuu 50 ama 40 ama 60 sano u qaadiyaha baa leeyahay kiiska noocan oo kale nin noocan oo kale gali karaya waxa laga yaabaa marka qaarkood adduunka in qaadi 15 jir wuxuu doono xukmiyo waxay doonaan la fuliyo ay doonaa meel ay ka timid marwaan ibn hakam in la yiraahdo waad garanaysaan waa ninkii daray abdul malik marwaan ninkii muslimiinta ay amiirka ay qiimaha badnaa muslimiintu markii khilaafadii ali ay dhamaatay xogaa khilaaf baa yimid dagaalay waxba dhaadhaceen markii dambe waxay gacanta iyo guusha u gashay abdul malik marwaan ilaa farwiilo dhalay ay ma ay noqdeen oo dowlad umawiya xoogeedii uu yimid intuu dagaalada ay socdeen marwaan ibn al-hakam ninka odayga la yiraahdo khilaafada wiil aan filayo muawiya radiyallahu anhu dhalay wiilkiisa inuu dhalay baa markii loo magacaabay nin yar buu ahaa asaga waxa la yiri wuxuu ahaa advisor ama saninka haga markii dagaal la abuurmay
wuxuu u yimid nin la yiraahdo Ayman ibn Khuraym inta badan dagaalada siyaasadda iyo xugun doonka iyo kursi doonku dhiiga lagu daadiyo waxa uu ka badan yahay xataa inta caadi u dhimata marka taariikhda akhriso inta kursi doon dad loo laayay wax tirsami kara maaha nin buu u yimid saxaabiya oo la yiraahdo Ayman ibn Khuraym wuxuu yiri ala tukhriju tuqatilu macana war Aymanow miyaadan raacayno dagaal baan ku jirnay waxbaan soo dhicinaynaaye miyaadan nagala qayb galaynin Ayman muxuu yiri nin walba anoo waxa loo baahay Ayman oo inuu noqdo ma gaari karo darajadiisii laakiin aqligiisa iyo Ilaahay wuxuu siiyay diinta uu baray wuxuu yiri qala inna abi wa ammi shahida badran ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abtirsanaya wuxuu yiri aabahay iyo adeerkayba ragii badar ka qayb galay bay ahaayeen waa darajo kan ugu sareysa weey waa ahlu janno waxa laga yaabaa inaad tiraahdo wariyaha tahay wuxuu yiri anu generaal baan aawogay generaal buu ahaan jiray haya hooyaday gulwada ahaan jirtay haya abay ku musaari waa haya abtigay xaafadu wuxuu ku jiray haya marka abtirsanayno ninkan wuxuu ku abtirsanayay dad ahlu janna wuxuu yiri waxay ii ballameen buu yiri wuxuu wa innahuma ahida ilayya waxay ii ballameen buu yiri oo igu dardaarmeen alla uqatila ahadan yaqulu la ilaha illa allah abahi adeerkay waxay iga tageen buu yiri dardaarta ii dhaafeen inaan la dagaalamin qof leh la ilaha illa allah macna waxa weeyaan nabiga kaleey salaam wuxuu yiri man qala la ilaha illa allah asima minni dima'ahu wa amwalahu aw kama qala salaam ninki la ilaha illa ilaaha dhiigiisa waa xaraan in la daadiyo xoolihiisa waa xaraan in la qaato cirdigiisa waa xaraan in lagu xadgudbo xuquuq kaamila ghayr manqusu leeyahay wuxuu abahay adeerkiina waxa yiraahdaa Aymanow intaad nooshahay nin la ilaha illa allah leh wuxuu yiri kutoori xabadaha u qaadanin laakiin wuxuu yiri anu hadaad wuxuu yiri ayadoo sida ay tahay laakiin wuxuu yiri shardi baan kugu xirayaa buu yiri fa in ji'tani bibara'atin min an-nar kharajtu ma'aka Ayman wuxuu yiri Marwaano hadaad wuxuu yiri waraaqi keenta buu yiri ay ku qoran tahay inaanan naar gali doonin waan ku raacayaa buu yiri markaasuu yiri warna dhaaf intuu keenaya waraaq baan rabaa buu jannada ka timid Ilaahay xaqiisa ka timid oo ay qoran tahay Ayman wuxuu doonaa sameeyo naar gali maayo annaguna nin la ilaha illa allah la salaas wax dukaday masaajid ka soo baxay quraan akhrinaya baa waxa weeyaan waxaan doona ka yeelan hadaan Soomaalinahay nin la ilaha illa allah la ba shubho waxaan xaqiiqo ahayn wax baa lagu tumay wax baa loo mareeyay wax baa soo yeelay خلاص waa dhamaatay dhiigiisi banaanka xalaal buu noo yahay markaasuu Ayman Khuraym baa wuxuu leeyahay walastu biqatilin rajulun yusalli ala sultanin akhar min quraish lahu sultanuhu wa alayya dhanbi ma'ad Allah min safahin wa dayshin aqtulu musliman fi ghayri dhanbin falastu binafi'i ma 'ishtu 'ayshi wuxuu leeyahay anu wuxuu nin muslim oo dukanaya wuxuu la dagaalamay maayo ala sultanin akhar min quraish wuxuu nin kursi raadinaya oo mid kale to Quraysh la dagaalamaya kursi raadinaya inuu dabka isaaro oo naar igaliyo asagana uu kursi ku fadhiisto anna aanu dhinto jannaara ku galo diyaaru maahi wuxuu lahu sultanuhu alayya dhanbi markuu kursiga gaarana asaga baa ku raaxaysanaya dambigana aanu isaaran yahay wuxuu Ilaahay baan ka meengalay doqonnimo iyo safiihnimo aqtulu muslima fi ghayri dhanbin manin muslim baan gowracaya oo dilaya iyadoo wax dambi ayeen jirin oo san kaysay ayeen jirin nin baa wax ku akhriyay wax buu ku sheegay ajarad buu ku duubay balaayu ku akhriyay fulaan ba diintu ka baxay banaanka istaaji waxa socdo way qodobka labaad oo waxyaalaha lagu halaagsamo marka dhiigaasi ninkii aakhirad dan kale oo qiyaamad dan kale oo alla dan kale ayadka Ilaahay nasuusta nabiga kaleey salaam uu ogaansamo arinta kale oo muhlikaadka lagu halaagsamo oo aad filayso in waaqicina iyo sidaan u noolnahay qayb kamida
إفساد الأرض دولك ولا فساديو فساد دولك ولا فساديو منافقين تي مجرمين تا بإلهي وحو كش غيبا ليسوا حوليه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون منافقين تي مجرمين تا وحي إلهي وحوليه حدين لا يدهدولك فسادينينا وحي إلهي مصلحين بأنهاي nin dad qixiyeyba wuxuu ku leeyahay wax islaaxiyaan raba aqoon nin kumaaday wuxuu ku leeyahay wax islaaxiyaan raba ummad wax kumaaday wuxuu ku leeyahay wax islaaxiyaan raba mid guriga dunyayba wuxuu ku leeyahay inaan wax islaaxiyaan raba maxay islaaxinaysa aqoontii guriyihii weyday ninkii gurigii waayay islaantii ninkii weyday caruurtii aqoontooday maxay islaaxi maan kara wuxuu yahay ilaahay markuu wuxuu leeyahay ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun iyaga mufsidiina oo muslixiin ma nimankaasi إلهي آيات كلا وحوليها ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المفسدين إلهي بريا إذنكم يسبح بحنيا إذنكم حال الله تضرع سمينيا سابتوا إلهي المفسدين كما جعلا مركز إلهي عليه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إلهي وحولي دولك فسادين مركز إصلاح ذي كذب ما حيكون في إصلاح ذي ذاتك مؤمن أهل لا إله إلا الله وي ما حيكون إصلاح ذي أمني أمان باك جرى ما حيكون إصلاح ذي وناك باك صعدة ما حيكون إصلاح ذي قرآن بالغوا أخريها ما حيكون إصلاح ذي اسبتال إلا ذهل ما حيكون إصلاح ذي مدارس بيكفر انتهي ما حيكون إصلاح ذي وناك باك صعدة معنى هذا ماها وحنا يوضا صحيحين صح خلط وإيمان كرا لكن وحا كان خلطا سيا نصحه قريانا مدود الدمينية دريشا خلطا الباب با خلطا سوريا حن واحن يهي قريان قل كان نقيا سانو إصلاحيه إسلامكم شريعة الدين ما أقرأ إلهي سبحانه وتعالى مركل وحوليه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين حتى يجيستان إلهي عدنا ما كقرصونا وحق قلوب تكوجتي واحد غرنا يسوقيه حتى هذا مدة أوقع يلسوا ترى محاضرين جيسوا عقلية تروح ما إصلاحنا يا ترى هذا ربي سبحانه وتعالى كما قرصوني إلهي وحليه ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ذاتك وحكم إذا قار إلهي رميسان إيا قار ديدا ولي بربي وحليه كوا مفسدين تو مدى فسادين إياه وحكمت إلهي إليه ولا تضيعوا أمر المسرفين إلهي وحليها أضيعين لمنك مسرفين تأحد قد بأمر كوضا يي ربي وكواسي الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كوا دولك فسادين إياه أن وحبا وراجنين إلهي وحليها لمنك أمر كوضا هي لنا أنه نيانا ضيعنا مفسد الله يرسول كيسا كفرتين هدو ربضان وحد دورها شاكتو أوكي ملائكة إلهي سبحانه وتعالى مركو إلهي نبي الله آدم دورين وأوره وحو إلهي وحوري وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلهي وحوشي ملائكة وحربها دولك إنانكو أبوره ابن آدم ربي أوهقان سما عابدا وناك سميا مركز إيحي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون markiiba waxay sawirteen in nimanka dhulka lagu beeri doono ay dhiiga daadin doonaan mufsidiin noqon doonaan wax haleyn doonaan markaas Ilaahay uu leeyahay waxidaan ogin baan ogahay sax mufsidiin waa ka soo dhaxbixi doontaa laakiin Ilaahay wuxuu abuuray waxay in dhulka taamiidiyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u hoggaansamaan Ilaahay nabiga Ilaahay mar labaad wuxuu ku leeyahay balagayso ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام dadka waxa kamida nin warkiisa markuu hadlayo idaacadaha ka hadlayo meediyaha ka hadlayo dadku uu khudbaynayo hadal qiimo badan wanaag badan khayr baan soo wada maxaan lahaa biyo khayr baa soo socda waxbaan istaajin doonaa waxaan yeeli doonaa buu kale wuxuu hadal been buu ku qurxinayaa ilaahay wuxuu leeyahay inuu yahay og yahay buu ilaahay marxaati ka yahay inuu mid dood badan oo uu hadal mooyay wax kale oo san haynin markaas ilaahay leeyahay wa